dooxa weyn ee magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa saaka soo rugmaday kadib markii roobo mahigaan oo ka da'ay buuraha waaweyn ee gacan libaax ay u soo rugmadeen xagga iyo dooxaasi magaalada Burco. saaka waxaa lagu waabari daadad gilgilay birishada magaalada Burco halka qaar kalena ay jajabiyeen. haddaba maamulka gobolka Togdheer iyo ka degmada taliyaha qaybta ayaa joojiyay isu socodka gaadiidka iyo welibana dadka kuwaasoo fariin adagna u diray bulshaweynta qaybaheeda kala duwan inay ka digtoonaadaan. waxaan u sheegay ummadda reer Burco dooxyada daadka maraya maanta aad iyo aad buu fara badan yahay waqtiyada indhawaale ummadii taariikhda haysay biyahan oo kale may arag marka waxaan u baahanahay u sheegnaa reer Togdheer iyo reer Burco inay iska ilaaliyaan oo booliska ay maqlaan oo birishada ay ka dulqaaqaan oo birishada ay haystaan siligyada ay haystaan oo isku tiirinayaan inay ka baxaan taariikhda inta la garanayo hore u soo marin daadkaas wuxuu gaadhay xawaali 6 mitir buu kor gaadhay waayo biriijka yar ee lugta oo 5 mitir iyo wax ah dushu ka mar marka waxaan isleenahay 6 mitir buu ku dhawaaday muxuu ahaayay daadkaas khasaare imka inta noo muuqata saddexda biriij buu wuxuu gaarsiiyay khasaare ayuu gaarsiiyay biriijkan imkaan joogno biriijka China dhisay wuxuu gaarsiiyay khasaare hoosta warma hayno iyo bilariska warma hayno laakiin inta imka noo muuqanaysa waxa jabay dhulkii kaabadihii biyaha cilinay oo dhan baa jabay waxa jabay kaabadii dhexe ee cilinaysay maartay ciidda u cilinaysay bilariska ayaa jabtay biriijkan yar dhexe waxa jabay waa foot biriijka Elgooni waxa jabay birihii iyo sabadihii biriijka dhakada ka saarnaa ee dadka maartay ka cilinayay inay ku dhacaan toga ku dhacaan baa jabay waxa qodmay dhul alla dhulkii loogu talagalay inay daadka celiyaan baa qodmay biriijka shishe ee deera biriij isagana intaan leeg baa ku dhacday hadduu imika sii socdana waxaan ka baqaynaa khasaare intaa ka badani inuu yimaado way taagan yihiin saddexda biriijba way taagan yihiin alaan dushooda wanaga taagan ummaduna waxa weeye inay digtoonaato biriijada aan laga talaabin imika baabuurtii gaadiidkii baan ka joojinay dadkii imika markuu yaraaday hal baan iyo dadkii loo fasaxay say uga talaabaan waayo biriij waa la samaysan karaya laakiin qof daadi naga qaado dib u soo noqon maayo dadkana waxaan leenahay nafiina ilaaliya daadkan maanta Burco soo maray waxa weeye mid aan jirin oo hore u jirin oo aan soo marin taariikhda inta la garanayo dadku waxay sheegaan dadkii xaabaale laakiin halka ma gaadhin marka waxaan isleeyahay waxay u baahan tahay ilaahay subxaanahu wa ta'aala marka hore maartay isaga loo mahad celiyo joognaa magaaladii Burco oo afartii biriish ee magaaladu lahaydba ay buuxsameen dadweynaha waxaan ugu baaqaynaa oo aanu leenahay biriishka ka baxa biriishada waayo biriishadu waa imika halis bay ku jiraan raxiim anigu waxaan ahay injineer maxamuud yaasiin maxamed da'daydu waa ilaa 8 iyo 7 baan jiray dee roobabku way badnaan jireen berigii hore aad bay u badnaan jireen laakiin sidan imika ma ahayn oo dadkiibaa meel walba dhistay biyuhu way socon jireen mar baa waxaa jirtay inay ku soo tallaabi jireen meesha la yidhaahdo daalo halkan la yidhaahdo oo ay baanka iyo arligaasoo dhan duqeeyeen laakiin imika waxaan kula talinayaa dadka shacabka reer Burco waxaan kula talinayaa dadka reer Burco in ay maqlaan maamulkooda oo horta biriijkan laga dego. waa markii uu horeysay dad noocan oo kala uu soo maro dooxan wariye Maxamed Wardi Somali Cable Burco.